السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka oo xoojisay mowqifka xukuumadda Soomaaliland ee ku wajahan kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamaya magaalada Laascaanood madaxweyne Erdogan oo lagu eedeeyay masiibadii ka dhacday Turkiga xilli uu booqday deegaankii uu ku dhuftay dhulgariirka xoogani daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena oo fidsan Border Mills waxay kuugu bishaaraynaysaa daqiiqda cad iyo budo isku jira iskuna dheelitiran whole wheat flour iyadoo kiilooya iyo xirmooyin sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufaca 12 kiilooya badh oo aad kaga raysato daqiiqdii la miisi jiray iyo 25 kiilo ama half weydii bakhaarka kugu dhow Border ma haysaa garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah madax dhaqameedka beelaha Sool iyo Buuhoodle ayaa ka soo dhex muuqday liiska boqolaal xubnood oo argagixiso caalami ah kuwaas oo dawladda Mareykanka hore u qorshaysay in hantidooda la xayiro garaad jaamac oo 17 sanadood ee u dambeeyay si dhuumaalaysi ah ugu noolaa deegaanka Saaxdheer balse bishii hore helay fursad uu ku soo galo magaalada Laascaanood kadib markii ciidamada qaranka Soomaaliland nabadgelyo ahaan uga baxeen halkaasi ayaa ka soo dhex muuqday liiska boqolaal xubnood oo dunida ugu calaamadsan argagixiso sida ka muuqata liis dheer oo ku jiro qaybta kaydka xogaha sirta ah ee laamaha ammaanka ee Mareykanka garaad jaamac garaad cali ayaa ah qofka 54aad ee ku jira liiska dadka ku eedeysan argagixisada qoraal la socda liiska dadka magacyadooda la baahiyay ee garaad jaamac garaad cali uu ku jiro ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush uu sanadkii 2001 saxeexay in hantidooda la xayiro xogtan la helay ayaa xoojinaysa xogtii hore loo helay ee la xidhiidhay in dawladda Soomaaliland ay kooxo argagixiso ah kula dagaalamayso magaalada Laascaanood dhinaca kale Fuad Shongale oo ah hogaamiyaha kooxda Al-Shabaab ee ku sugan Laascaanood ayaa maleeshiyada ay ka barbar dagaalamayaan ku soo rogay amar ah inaanay isticmaalin wax kamarada oo ay sawirro ama fiideo ku qaadi karaan si aanay u kashifmin wajiyada ciidanka Al-Shabaab ee la safani Shongale ayaa garaad jaamac garaad cali kula shuruutamay in la fuliyo mamnuucidda isticmaalka kamarooyinka si ay ula dagaal galaan taas oo markii hore u qurquri weyday xubnaha maleeshiyaadka balse markii dambe garaad jaamac ogolaysiiyay in amarka mamnuucidda isticmaalka kamarooyinka lagu dhaqmo bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay tahay bishii labaad 2023 waxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland rabtaa in ay warbixin kooban ka siiso shacabka iyo bulshooyintaba war kooban xaaladda magaalada Laascaanood waxaad ogtihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka baxay magaalada Laascaanood 5tii bishii koobaad 2023 welina ciidanku sidii ayuu magaalada dibadda uga joogaa oo dusha uga eegaya waxaase jiray dagaalkii ay soo qaadeen kooxaha argagixisadu ay ka bilaabeen magaalada Laascaanood maalintii ay bisha labaad 6 ahayd sanadkan 2023 waxa uu galay maalintiisii saddexaad kooxaha argagixisada ayaa weli markaa weeraraya fadhiisimada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku eeka ama joogay agagaarka magaalada Laascaanood waxa kale oo aan sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland weli uu ku sugan yahay fadhiisimihiisii magaaladan ay ka wadaan dhibaato kooxaha argagixisada kuwaas oo ku dhex dhuumanaya shacabka ku nool magaalada Laascaanood xagga adeegyada bulshada magaalada Laascaanood waxaan sheegaynaa imika iyo mar horeba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dadaalaysay inay mar walba helaan adeegyo asaasi ah shacabka ku nool magaalada Laascaanood
adeegyada biyaha, laydhka, caafimaadka iyo amniga sida ay u helaanba bulshooyinka kale ku nool magaalooyinka kale. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale cadeynaysaa in aanu jirin adeegyo ay ka goysay magaalada Laascaanood, mana jirto waxyeelo ay u geysteen ciidanka qaranku meelaha dadweynaha sida cusbitaalada iyo masaajidda, kuwaasoo qaarkood ay ahaayeenba cusbitaalada iyo biyaha iyo waxa adeegyadaasi kuwa ay qaranku marka horeba bulshadiisa uu isagu u dhisay oo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan. Waxaa kaloo jira warar been abuura oo ay fidinayaan kooxo abaabulan oo ujeedadoodu ay tahay inay khalkhal iyo majara habaabin ku sameeyaan xogaha rasmiga ah ee la xidhiidha xaaladda Laascaanood. Waxaad ogtihiin sawirrada lagu baahinayo baraha bulshada qaarkood oo ah adeegyada asaasigeenu sheegnay qaarkood oo waxyeelo loo geystay sida cusbitaallo, masaajido ama meelo kale, inay yihiin sawirro kabkaba oo been abuura oo laga keenay wadamo shisheeye, isla markaana aad aragteen baraha bulshada iyadoo bulshaduba soo bandhigaysa oo aanay ahayn wax xataa waddanka gudihiisa ku yaalaba oo meel kale laga keeno been cad ah. Ugu dambeyn, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba waxa ka go'an in arrinta Laascaanood lagu dhameeyo nabad iyo wada hadal sidii ay golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hore uga aamiyeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa sii kordhaysa cadhada ay qabaan dad Turki ah oo ku saabsan sida ay dowladdu ugu guuldareysatay inay u diyaargarowdo masiibada kadib markii kumanaan qof ay ku dhinteen 2 dhulgariir oo waaweyn oo isniintii dalkaasi ku dhuftay. Tirada dadka ku dhinta masiibadaasi ayaa haatan maraysa 11,000, waxaana la filayaa in tiradani ay maalmaha soo socda u sii kacdo. Madaxweyne Erdogan ayaa ku dhawaaqay tirada dhimashada mar uu tegay mid ka mid ah gobollada ay sida ba'an dhibaatada u saamaysay. Hase yeeshee waxaa jira cadho siyaasadeed oo sii kordhaysa mid ka taagan deegaanada ay dhibaatadu saamaysay, taas oo ku saabsan jawaabta ay dowladda Erdogan ay bixisay iyo diyaargarowgeedaba. dad badan oo ku nool deegaanada ay dhibaatadu sida weyn u saamaysay ayaa cabasho ka muujiya waxa ay ku tilmaameen gaabiska ay hay-adda maareynta masiibooyinka ee Turkigu ay kaga gaabisay jawaabta ay ka bixisay dhulgariirkani. daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareerintan warka iga kulmi doona. waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.